بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دا مسلمك ميل كستو كسوغانتين دمانتين وانا السلام يا ميل كستو كسوغانتين صحابي سو دوادا ما انت waxaan rabaa inaan nooga sheekeeyo qisad dhacday oo macnaha yani qisad dhacday oo xaqiiqad dhacday oo qisad dhacday ayaan rabaa inaan nooga sheekeeyo qisada oo ay tahay wiilkii saaxiibkiis kitaabka quraanka ka xaday sidaasna ku soo muslimay ayaan rabaa qisadiisa inaan nooga sheekeeyo asxaabay wiilkaas waa wiil reer Canada ah wiil yar oo da'yar oo reer Canada ah waaye oo yahuud waayay wuxuu kitaab quraan ka xaday oo buug buu moodaayay kitaabka quraanka buug buu moodaayay wuxuu ka xaday saaxiibkiisa oo maxay ahaday saaxiibkiisa oo iskuul isla akhrisanay jaamacad sare dugsiga sare isla akhrisanayeen ayuu ka xaday kitaabka wuxuuna moodaayay buug kitaabkii markuu ka xaday wiilka horta wuxuu baranayay luqadaha yani diinaha kala duwan ayuu baranayay wiilka buug kitaabka xadaayo macnaha yani dugsiga sare macnaha galaaska sare ayuu akhrisanayay diinaha kala duwan ayuu baranayay fasalkiisa galaasyadiisa ayuu ka baranayay wiilka marka wiil kale uu ka xaday kitaab quraan ayuu ka xaday wiil saaxiibkiisa iskuul akhristaan ayuu kitaab ka xaday kitaabkana markuu xaday buug buu maleynayay boorsadiisa uu garbaha ku sito ayuu uga ritay 3 sano markay ka soo wareegatay ayaa maaliyaha kamid ah wiilkii yani yahuud ahaa wuxuu damcay inuu gurigiisa uu iska hagaajiyo ama inuu guro oo kale 3 sano ka soo wareegatay marka uu kitaabka xaday maalintii dambe duu boorsadiisa fiiri wuxuu arkay kitaabkii oo ugu jiro maxay ahayd horta qof walba oo adduunka ku noolna markuu diinta islaamka galaayo hadduu ilaahay kuu qaro diinta islaamka inaad gasho ood ka mid noqoto oo ilaahay kuu qadiro cid kaa hor istaagaysa malaha hadduu ilaahay kuu garanin inaad diinta islaamka aad gasho ood macnaha ku biirto ama aad ku jirtana maxay ahayd cid ku fahansiin karta malaha ilaahay subxaan qaadirka inuu ku fahansiiyo maayo marka wiilkan wuxuu ahaa yani wax ilaahay u doortuu ahaa inuu kitaabka xado sidaas uu ku soo muslimo ayaa ilaahay u doortay ilaahay baa u dooray marka wiilkii marka asoo maalin guriga iska hagaajin rabo ama guuri rabo ayuu kitaabkii 3 sano boorsada ugu jiray ayuu maxay ahayd ayuu arkay kadibna wuu akhriyay markuu akhriyay wuxuu ka fahmay meesha wax sax ah inuu ku qoran yahay ayuu fahmay يعني وحي أساق لو ديجي جرا بيبولك أي معلمين تيس أي وقا أخرين جيرين كتاب قالوا لو أخرين جيرين إنو بين شيء يكاس أو دين تا إسلام كأي رمتهاي أو دين تا إسلام كأي صحتهاي أيو ويلك ماشي كفهم مركي تنبوحوا سؤال ويدية معلمين تيسي سيدا إن بادري كوبي وحو أخرين جيرين بيبولك وأخرين جيرين أيو سؤال ويدية سؤالي هنا وي أوغا جبابي واي shaki weyn baa gala marka wiilka wuxuu ka shakiyaa diinta asaga uu ku sugnaa ee bibolki ma dhigi jiray yani diinta gaaladu haastay oo uu ku dhashay ayuu marka shaki ka qaaday kitaabka quraanka wuxuu ka akhriyay iyo wuxuu bibolka ka akhrin jiray iyo macallimiintiisa bibolka markuu jawaabta uu quraanka dhahay waxayna iga jawaabtiin ayaan rabaa ugu dhaw oo jawaabtina ay u celin waayeen tiiba wiilkii shaki weyn ku dhalisay diinta islaamka inay sax sheegaysana وفهمي كدبنا ويلكي وحو آذي مساجد وحان تقول هاي المسلمين أي لي مساجد كاسنا وحان أغوط تقول يرى المسلمين آد أفرا بدن وعبادة سنة أي مساجد أغوط تقول وحان ويدود وحان إيقا ورنتين بودور تمركان مساجد تقاي وحو دا لبس كان ما انتقبا ما يحين بود وحو يرى ديقها يدورنايان sanka ay durna jijimooyin baan qabay farantiya badan ba faraha ii buuxay sarwaalo yani yaxsisi kala qaab dareen qabay labiska ay quruxsanay muslimiinta qabaan ma qabin wuxuu labiski yani culug raafraabo iska socdo yani diin haysanin baan ahaabul marka wuxuu yiri wiilka wuxuu yiraahday masaajidkii muslimiinta badan ku cibaadanaysa baan tagay markay wuxuu yiri ay kubi gaalada ay jawaabta u weydiiyay ay uga jawaab waayeen yu masaajid muslim leeyahay tagay sidoo wiilka sheegay marka wuxuu yiri muslimiinta baan dhaw diinta islaamka bal iiga warramo oo bal wax iiga sheega meesha muslim fara badan ku cibaadeysanay
سيفي عبال يقول شرحوا الدين الإسلام الله يقول فسروا وحان صلابتو يري أنو نياديدا يعني ليه هاي الدين الصح ده ما أنت بتسوق شيء وحان صلابتي أصحابتي وحو يري صاحبهيجي إريركيجي أو صلابتي وحو يري داي مركان ماشي دib ugu soo laabtay asxaabtaydi ani habeen waxaan sameeyno dhahay falal dambiyad aad iyo aad u foolxun ayaan asxaabtaydi ani qasno dhahay wax kasta oo xumaan ah yaan habeen inta anaga guri wuxuu dhahay ku caweynayno caweesimayno yaan sameeyno dhahay oo wuxuu yiri falal dambiyad xun baan faraha la galno wuxuu wax baan qasno dhahay anaga wixii qasaynana boolis baan soo weeraro guriga aan ku jirna boolis nagu weeraro dhahay sidaas ayaa wuxuu dhahay waana ka fakado dadka ka fakada meesha aan ku jiro dhahay habeenkaasaanan go'aansado yaray inaan xumaanta iyo dhibka iyo qurunka ee gaalnimada iyo jaahilnimada ay ku sugan tahay annagana dambiga halista aan ku jirno habeenka baan go'aan ka qaato dhar inaan diinta gaalada ka baxo oo diinta islaamka aan ku biiro maalinta wixii ka dambeysay dambiga aan faraha kula jiro waan kala baxay kitaabka quraanka aan qaadoon rumeeyay asagaan akhriyay masaajidka muslimka aan ku xarooday salaada ilaahay baan tukaday quraankii baan akhriyay maskaxdaydana way isbadashay waanan dagay waanan qabowuu dhahay qurunka iyo wasaqti aan ku jirana iyo macal daahir la'aantina waan ka baxay asxaabay ninkaas waa nin reer Canada ah markiisii uu yaraa wuxuu ahaa yani markuu diintan saa ugu soo biiray nin wuxuu ahaa macnaha wuxuu ahaa yani nin wuxuu ahaa yahuud u ahaa haddana wuxuu noqday nin muslim ah ma garanaysaa haddana wuxuu noqday wiil muslim ah waa wiilkii kitaabka saaxiibkiisa ka xaday ya oo sidaasna ku soo muslimay sharaxiisana ani intaas baan inaga soo qabtay oo inaga soo akhri qaaday marka walaalaha Soomaaliyeed waxaan inagu gubaabinayaa qofka ilaahay muslimnimada u dooro ninka hor istaagi kara ma jirto qofkaan ilaahay u doorinina lama fahansiin karo diinta islaam ilaahay ha naga dhigo kuwa diinta islaamka oo aan ku dhalanay macaanta badan kuwa si haasta Allah naga dhigo kuwa diintooda islaamka jidkii wanaagsan kuwa ku socdaan ilaahay ha naga dhigo diinta xaq ah ee lagu dhalay kuwa ku sii socdaan Allah naga dhigo gaaladana inuu ilaahay diinta islaamka soo geliyo oo ilaahay jaahilnimada iyo gaalanimada ilaahay ka bixiyo ilaahay aan u barin aamiin dhaha ma sha Allah tabarakallah warwarka waa war aan ku farxay aad iyo aad baan ugu farxay asxaabay dhageysi wanaagsan share gareeya subscribe saara يعني مالكست واد جاين كرتين قل كست أو جوري مسلم واد كشير جاين كرتين بيش كواين حلال بيش كواين حلال جوري كست أو مسلم ليو أما فيسبوك هذا أما واتساب هذا أما فايبر هذا أما محي هذا تيك توك هذا يعني مالكست واد جاين كرتين قرش الإسلام سي أي واحد فهمان مسلمين تلامانتو سي أي يعني واحد فهمان مركا قصة المجاعدة وحلا يرادا ويلكي ساحبكيس كتاب القرآن كحرة سلاس نقصه مسلمة ما شاء الله صحابة سود دوادة إنا سود دوادة تشير جرنت يا ساس جرب كون واتك عجستين أنا ملا ولا لا إلهي هينا جرب قلو وأنا إنا السلام هاي ملائكة هينا سلامتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.